Soomaaliya mudane madaxweyne dhammaan madaxda kale iyo shacabweynaha reer Puntland waxaan marka hore madaxweyne adiga iyo shacabka iyo madaxdaada kale idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo aad igu soo dhaweyseen dhulkii gudubka iyo beeyada waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo aad igu soo dhaweyseen dhulkii saldhigga u ahaa horumarka iyo ilbaxnimada Soomaaliyeed waxaad ku mahadsantihiin mudane madaxweyne adiga shacabka sharafta leh reer Puntland inaad nagu soo dhaweyseen dhulkii xudunta u ahaa halgankii daraawiishta waxaad ku mahadsantihiin inaad nagu soo dhaweyseen dhulkii barwaaqada iyo horumarka oo nasiib u yeeshay inuu qayb ka ahaado ama uu ku yaallo meeshay iska gooyaan badweynta Hindiya iyo badda cas waxaan ku faraxsanahay inaan maanta soo booqanno magaalo madaxda Puntland Garowe oo ah hooyadii federaalka Soomaaliyeed soo dhaweyntiina qiimaha badan waxaan ku fahmay soo dhaweyntiina qiimaha badan waxaan ka bartay oo aan ka fahmay maantay sababta ay reer Puntland ugu guulaysteen nabadda midnimada iyo dowladnimada halkan ka muuqata waxaa halkan ka muuqata maanta in dhammaan shacabweynaha reer Puntland dhallinyaro dumar siyaasiyiin salaadiin odayaal dhaqameed ganacsato iyo aqoonyahanba inay wada fahmeen iyadoo uu idinkugu horreeyo madaxweynihiinnu in dowladnimada maanta ay u baahan tahay in gacmaha la isqabsado waxaa reer Puntland ka muuqata inay fahmeen in dowladnimada ay u baahan tahay in loo duceeyo oo aan la habaarin